بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله وحموانتا oo bisha ay tahay 14 bishii koowaad 2015 soo saaray afar dekreeto oo kala duwan oo ah magacaabis kuwaas oo u dhignaa sidatan wareegtada koowaad wareegta madaxweyne magacaabid madaxweynuhu wuxuu yiri markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markii aan tixgeliyay ahamiyadda ay agaasimayaasha guud u leeyihiin oo adeegida dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xusan kow injineer Ahmed Maxamed Cabdi Cige agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laba Axmed Carab Muuse Bulaale agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex Cabdi Cali Maxamed Mahdi agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland afar Cabdifataax Ismaaciil Ducaali Jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shan Khadar Nuur Cabdi Buubaal agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lix Cabdilaahi Maxamed Maxamuud Jiide agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland toddoba Maxamed Cabdi Xaashi Cabsiye agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sideed Cabdirashiid Cabdi Jaamac Buux agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sagaal Shucayb Cismaan Maxamuud Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland toban Maxamuud Cabdirasaaq Cabdi Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxay wareegtadii koowaad wareegtada labaad waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan tixgeliyay ahmiyadda haamaha kaydka shidaalku qaranka u leeyihiin horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha dalka markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba isla markaana aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan la sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Maxamed Sadiiq Cabdilaahi Dhamme laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha haamaha kaydka shidaalka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taas waxay wareegtadii labaad ee madaxweynuhu soo saaray maanta wareegtada saddexaad wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadaha mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Mas'uud Cabdi Cali Xasan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta UAE Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada ugu dambaysa ee afraad uu madaxweynuhu maanta soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan tixgeliyay ahmiyadda la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynuhu u leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan ku qancay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba isla markaana uu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay
in Dr. Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. intaas waxay ahayn afarta wareegto ee madaxweynuhu soo saaray. waxaa xusid mudan in dadka mas'uuliyiinta la magacaabay la farayo inay muddo 3 cisho ah kagala wareegaan xilka mas'uuliyadaha loo magacaabay iyo wasaaradaha iyo hay'adda qaranka loo magacaabay marka laga reebo danjirayaasheena arrimaha dibadda. Allah mahadle. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.